unugyada jidhkeennu ilbiriqsi walba way bololaan wayna dhintaan. jidhka bini'aadankuna mar walba wuu isjadiidiyaa oo iskiisa ayuu isaga sifeeyaa haraadiga qashinta iyo sunta. 2016 ayaa saynisyahanka reer Japan Yoshinori Ohsumi la siiyey jaayisada Nobel Prize ee cilmiga fisiolojiga ee caafimaadka kadib markii uu helay qaabka uu shaqeeyo ama sunta isaga sifeeya jidhka bini'aadanku. qaabkan la yaabka badan oo lagu magac daray autophagy. haddaba maxaa ka dhigan tahay autophagy? maxayse tahay xiriirka kala dhexeeya soonka bisha Ramadaan ee muslimiinta? goordhow ayaan faahfaahinaynaa. waxaynu ognahay in jidhka bini'aadanku bedelo unugyada dhintay kana sameeyo kuwa cusub. qaybo ka mid ah xubnaha jidhkeennu waxay u baahan yihiin waqti ay isku cusboonaysiiyaan. taas beddelkeedna xubno ka mid a jidhkeenna ayaama bedelin unugyadiisa. laakiinse weli ma isweydiisa meesha ay aadaan unugyada dhintay ee bololaya jidhkeennu? Dr. Ohsumi oo ah dhakhtar reer Japaana kuna takhasusay cilmiga biolojiga ayaa sanado fara badan cilmi baadhis ku hayay sida unugyada jidhka bini'aadanku isaga nadiifiyo haraadiga qashinka. waxaana hanaankan loogu magac daray cilmiyan autophagy. ereygan ayaa ka yimid Greek kana kooban auto oo ka dhigan iskiis iyo phagy oo cunis. haddii aad isku dhufato labada erey waxaa kuu soo baxaya iskiis isku quudis. waa erey cabsire, laakiinse hanaankan ayaa qofka u suurtageliya inuu caafimaad ku noolaado. qofkii ugu horreeyay hanaankan helay ayaa la odhan jiray Dr. Christian de Duve oo ahaa saynisyahan u dhashay Belgium. arrinkan ayaa sababtay in la siiyo jaayisada Nobelka ee culumta fisiolojiga ee caafimaadka sanadii 1974. waxaana sanadadii 60-aadkii uu daraasad ku sameeyey xubno ka mid a unugyada wax sifeeya, wuxuuna helay wax aad u muhiima. wuxuuna ogaaday in unugyada qaar ay leeyihiin qaybo wax lagu sifeeyo oo gaara oo mar dambe loogu magac daray lysosome. waxayna u shaqeeyaan sidii caloosha oo kale, waxaana ku jira aysiidho si gaara u habaysan. waxayna iyagoo adeegsanaya aysiidhadan lysosomku ayagu dib u sifeeyaan unugyada bololay ama dhintay, haraadiga cunnada aynu cunno, bakteeriyada iyo weliba fayrusyada iyo weliba qashino kale. waxayna kasoo saaraan unugyo cusub iyo weliba tamar iyo awoodda. hanaankan autophagy la-aantiis qofna ma noolaadeen oo sunta ayaaba dili lahayd. markaynu soo koobno, iyadoo la adeegsanayo lysosomka ayaa jidhkeennu wuxuu kala shiilaa qaab dhismeedyada proteinka isagoo u bedela acid amine waxa loo yaqaan. mar dambe ayuuna u adeegsanaa inuu dhiso unugyo cusub. markaas waxaa imaanaysa su-aasha ah, ma u baahan nahay inaynu cunno proteinka xawayaanka ama xoolaha si aynu u dhisno unugyada jidhkeenna? aynu kasoo qaadno in qofku uusan baquudan protein xawayaan intii muddaa, waana wax lala yaabo. laakiinse haddana markaad fiiriso waxaa qofka calooshiisa ku jirta tayada loo baahan yahay proteinka sidii uu cunay oo kale, farqina uma dhexeeyo. waxaana arrinkaas lagu macneeyey in jidhka bini'aadanku isticmaalo haraadiga unugyada dhintay iyo qashinka iyo weliba bakteeriyada oo dib uu sifeeya kana sameeyo tabar proteina iyo weliba unugyo cusub. maalin walba waxaa jidhkeennu u baahan yahay inuu bedelo 198 ama 283 garaam inta u dhaxaysa oo proteina. qofkuna wuxuu isticmaalaa 716 garaam oo proteina maalin walba. mana ku filna inuu dhiso unugyo cusub. waana markaas waxaa doorkeeda ay ciyaarto hanaanka autophagy, iyadoo isticmaalaysa qashinka proteinka kana sifaysa kana soo saarta protein inagu aynu u baahannahay jidhkeenna maalin walba. haddii hanaanka autophagy uu shaqayn waayo, waxaa qofka ku dhaca cudurrada macaanka heerka 2, cudurka Parkinson ama gariirisada, cudurrada gabowga iyo kansarka. dhibtuna waxay tahay haddii jidhku si dabiiciya isku sifayn waayo haraadiga unugyada dhintay iyo weliba qashinka, waxaa ragaadinaya sunta isbiirsatay oo isku bedelaysa cudurro, iskamana celin karo cudurrada, waxaana halis ugu jira cudurro halisa. Dr. Ohsumi ayaa helay in hanaanka autophagy xoogaysto markaa jidhku stress dareemo oo ka imaanaya haddii qofku cunnada ka soomo. xilligaasoo jidhka bini'aadanku bilaabo inuu isticmaalo haraadiga qashinka jidhka ku jira oo iskiis iskaga sifeeyo una bedelo unugyo cusub ama tamar. wuxuuna jidhku u shaqeeyaa si xawli. waxaana intaas ay cilmi baadhistu socotay oo Dr. Ohsumi isticmaalayay soonka si uu u sifeeyo haraadiga sunta ku jirta jidhka bini'aadanka. waxaana la ogaaday in qofku marka uu sooman yahay oo unugyadiisu noolaadaan waqti dheer ayna iyadu dhaliyaan tamar badan.
waxaana taas kasii daran inuusan caabuqba ku dhicin jirka. waxaana jirta haddii aad yaraysid nafaqada aad cunto waxaa kordhayaa xajmiga dioxidka jirkaaga ku jira, waana dheecaan ka dhaliya in jirkaagu iska sifeeyo sunta laguna dhalin yaraado. sida aad aragto, soonka dheelitiran ayaa caawinaya jirkaaga inuu iska sifeeyo sunta haraadiga, wuxuuna dedejiyaa in miisaankaagu hoos u dhaco oo jirkaaguna dhismo. waxaana hanaankan qofka uga faa'iideeyaa wax badan, sida cudurrada wadnaha, uu ka hortago cudurrada madaxa, macaanka, caabuqa, stresska iyo dhiigkarka. soonka ayaa ka difaaca qofka kansarka oo ka dhasha qashinka jirka oo buuxiya, wuxuuna dheereeyaa caafimaadka qofka kana hortaga kolestaroolka. waxaa jira siyaabo badan oo bini'aadanku u soomo, waxaase ugu fiican soonka bisha Ramadaan ee Islaamka oo saacadaha badan jirka siisa fursad iyo waqti uu iskaga sifeeyo qashinka. culimadan ayaa baaritaanka ku xaqiijiyay in soonka Islaamku yahay ka ugu fiican ee jirka bini'aadanka uga faa'iideeyo inuu iskaga sifeeyo haraadiga sunka. daawada ka faa'iideyso bisha Ramadaan oo Ilaah kugu nimceeyay cilmi, cibaado iyo caafimaad isuwan oo hadiyada xagga Alle kaaga timiday. like oo la wadaaga saxaabtaada una sii gudbi fiidiyogan.